بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijkan aan idinkugu haynana waxa kamida waaxda dagaalka Mareykanka ee Pentagon-ka oo shaacisay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ciidanka Mareykanka ka soo gaaray weerarkii galabtay ka dhacay magaalada Tadmur ee bartamaha dalka Suuriya weerarka ayaa la sheegay in kooxda ISIS ay fulisay waxaana soo baxaya warar lala xiriirinayo ninka weerarka fuliyay ciidamada ammaanka Syria laakiin war amurahan ka duwan ayaa waxa uu ka soo baxay laamaha ammaanka ee dalkaasi Trump oo u barar diiqay askartan la laayay wuxuuna ballan qaaday in si adag ay uga jawaabi doonaan Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo si rasmi ah u xaqiijiyay dilka taliye sare oo ka tirsan ururka Hamas Raid Saad oo lagu qaarajiyay marka Gaza weerar dhimasho dhaawac sababay oo RSF ay ku qaaday xarun qaramada midoobay ay ku leedahay dalka Suudaan shaqaale ka tirsan qaramada midoobay oo wax ku noqday weerarka xog cusub oo soo baxaysa ayaa muujinaysa in markab Shiinaha ka yimid oo agab military u siday Iiraan Mareykanku gacanta oo ku dhigay sheekada ugu dambeysay barnaamijka aan idinkugu hayaana waxay ku aadan tahay haweeneydan loogu magac daray turfatooradii qarniga ayaa booliiska waddanka Australia gacanta ay ku dhigeen kadib markii la sheegay iyada iyo gabadheeda in si cajiib ah oo yaab leh oo waliba khiyaano huwan dadka dahabka ay uga furanayeen bartamaha magaalada caawa waxaynu ku bilaabaynaa waddanka Syria halkaasi oo faahfaahin dheeraad ah ay ka soo baxayso askar Amerikaan ah oo lagu laayay galabta magaalo ku taal bartamaha waddanka Suuriya barnaamijkan ka horeeyay ee wararka caawa waxaan idinkugu soo gudbinay iyadoo la sheegay in waxyeello ay soo gaartay askarta Amerikaanka laakiin hadda warkii ayaa yimid isagoo dhammaystiran aynu eegno macluumaadkii ugu dambeeyay iyo wararka laga helaya Syria iyo warbaahinta dalka Mareykanka waaxda dagaalka ee Mareykanka ee magaceeda loo yaqaan The Pentagon ayaa xaqiijisay in laba askari oo ka tirsan ciidamada dhulka ee Mareykanka iyo hal muwaadin oo rayid ah oo Amerikaan ah lagu dilay weerar gaadmo oo kooxda ISIS ay ka fulisay lama degaanka magaalada Tadmur ee dalka Suuriya weerarka ayaa dhacay xilli askartaasi taageero ay siinayeen howlgallo kalena sida bayaanka Mareykanka lagu sheegay argagixisada iyagoo howlgal wadajir ah la sameynayay ciidamada isbahaysiga caalamiga iyo hay'adaha amniga gudaha ee Suuriya taliska dhexe ciidanka Mareykanka CENTCOM ayaa sheegay in qofka rayidka ee la dilay uu ahaa turjubaan la shaqeynayay ciidamada Mareykanka isla markaasna uu ahaa muwaadin Amerikaan ah weerarka ayaa sidoo kale sababay dhaawaca saddex kale afayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagon-ka Sean Parnell ayaa sheegay in dhaawacyadaasi la gaarsiiyay xarumo caafimaad halka xogayaha dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth uu xaqiijiyay in ninkii weerarka fuliyay lagu dilay howlgal ay fuliyeen ciidamadii la howlgalayay kuwa Mareykanka dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya ayaa sheegtay in ninka weerarka fuliyay uusan wax xiriir la lahayn hay'adaha amniga gudaha isla markaasna uusan ka mid ahayn ilaalada ama hoggaanka amniga wasaaraddu waxay caddaysay in weerarku dhacay xilli ay socotay booqasho ay sameynayeen ciidamada isbahaysiga caalamiga iyo taliska amniga gudaha ee Suuriya ee Tadmur markaas oo xubno ka tirsan ISIS rasaas ay huwiyeen ciidamada wasaaradda arrimaha gudaha ee Syria ayaa sidoo kale sheegtay in ay jireen dignino hore oo ka yimid ciidamada amniga gudaha iyo xoogaga la howlgalaya ee gobolka Baydia kuwaasi oo ka digiyay suurtagalnimada weerar ISIS ay qaado balse digniintaasi Mareykanku aysan qaadan haddaba wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa borordiiq u sameeyay askartan la dilay wuxuu xaqiijiyay in saddex muwaadin oo Mareykan ah la dilay isagoo sheegay in ay bixin doonaan jawaab degdeg ah oo arrintaasi la xiriirta dhinaca kale ilo wareediye ayaa waxay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters in qofka weerarkan fuliyay uu ka mid ahaa ciidamada ammaanka ee waddanka Suuriya inkastoo warkan Syria ay beeninayso waa tahay
markan waxay ku soo korna intaynu barnaamijka ku jirno ama barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo markan waxaynu jaleecaynaa dhanka waddanka Suudaan halkaasi oo lagu soo warramayo weerar ka dhacay xarun qaramada midoobay ay leedahay in shaqaale qaramada midoobay ka tirsan waxyeello ay soo gaartay ugu yaraan 6 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ay fulisay dayuurad aan duuliye lahayn oo ay leeyihiin ciidamada gurmadka degdega ah ee RSF taas oo lagu beegsaday xarun ay leeyihiin ciidamada qaramada midoobay oo ku taal magaalada Kadugli ee caasimadda gobolka Kordofan ee dalka Suudaan sida ay warbaahinta u sheegeen ila xogogaal ah golaha sare ee militariga Suudaan ayaa si adag u cambaarayay weerarkaasi isagoo mas'uuliyadda dusha u saaray ciidamada RSF kuna tilmaamay fal dambiyad u dhigma fal argagixiso oo abaabulan golaha oo gudoomiye u yahay taliyaha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah al-Burhan ayaa weerarka ku sifeeyay koror qatara sida lagu sheegay bayaan rasmi ah muuqaalo ku faafay baraha bulshada ayaa muujinayay dab xooggan oo ka kacaya dhismaha la duqeeyay iyo qiiq cirka isku shareeray goob joogayaal ayaa wakaaladda wararka ee AFP oo Faransiiska laga leeyahay u xaqiijiyay in dadka ku dhintay weerarka ay ahaayeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobay iyagoo tilmaamay in duqeyntu ay ahayd mid loo adeegsaday dayuurad daroor ah ciidamada RSF ee magaalada Kaduguli ku haya go'doominta muddo 1 sano iyo bar ah ayaa lagu soo warramaya weerarkan inay fuliyeen waxaana qaramada midoobay bishii November ay xaqiijisay in magaaladaasi ay ku sugan tahay xaalad macaluula gobolka ballaaran ee Kordofan oo u kala qaybsan 3 gobol ayaa caan ku ah beeraha xoolaha waxaana muhiim u yahay dhaqaaqyada militari iyo saadka maadaama uu isku xiro deegaanada ay ciidamadu ka taliyaan ee waqooyiga bariga iyo bartamaha dalka iyo gobolka Darfur ee galbeedka oo ay gacanta ku hayso RSF ayaa dagaal kula jirta ciidamada Suudaan tan iyo bishii Abriil 2023 waxaana gobolka ay ku baahiyeen dagaalamayaal diyaaradaha droonka iyo maleeshiya xulafa kuwaasi oo si joogta u fulinaya weerar kala duwan waa tahay qodobkaas halkaas ayna ku dhaafno goordhow waxaan u gelaynaa Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo goordhow taxaqiijiyay in la dilay hogaamiye sare oo ka tirsan guutooyinka al-Qassam amaba ninka labaad sida hadalka loo dhigo ee iska caabinta Falastiiniyiinta ee al-Qassam waxaan kaloo idin haynaa Mareykanka oo sheegaya in uu qabtay markab shixnad iyo agab ciidan siday oo Shiinaha ka yimid oo Iiraan ku socday wararkii ugu dambeeyay waxaan idinkugu soo gudbinay weerar ka dhacay Mareykanka Gaza oo Israa'iil ku andacootay inay ku qaarajisay hogaamiye sare oo ka tirsan guutooyinka al-Qassam haddaba ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo wasiirkiisa gaashaandhigga ayaa goordhow war soo saaray warbaahinta Israa'iil gaar ahaan wargeyska The Times of Israel ayaa waxa uu sheegay in Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga Israel Katz ay sheegeen in taliyaha sare ururka Hamas Raid Saad la dilay kadib qarax ka dhacay koonfurta Mareykanka Gaza oo dhaawacay 2 askari oo ka mid ah ciidamada kaydka Israa'iil bayaan wadajir ah oo ay soo saareen Netanyahu iyo Katz ayaa lagu sheegay in weerarka lagu beegsaday Saad oo jawaab u ahaa qarax Hamas ay fulisay ayna ka fulisay waxa loo yaqaan aaga jaalaha ee Gaza sida hadalka loo yiri kaas oo sababay dhaawaca askarta Israa'iil waxay sheegeen in Saad uu ka mid ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 7 Oktoobar 2023 isla markaasna maalmahan uu ku hawlanaa dib u habeynta iyo soo nooleynta awoodda Hamas waa sida Israa'iil ay ku doodayso Netanyahu Katz ayaa ku eedeeyay Raid Saad inuu qorsheynayay weerar cusub oo ka dhan ah Israa'iil isla markaasna uu jabiyay heshiiska xabajoojinta iyo ballanqaadyadii Hamas ee la xiriiray qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxay sheegeen in halkii hubka dhigista laga filayay uu ku mashquulsanaa hub urursi iyo waxay ku tilmaameen fal argagixiso labada nin ayaa carabka ku adkeeyay in cid kasta oo waxyeello u geysata Israa'iil iyo askarteeda ay wajihi doonto jawaab adag gudaha Gaza ama meel kale haddaba muuqaal militariga Israa'iil ay soo bandhigeen ayaa waxa uu muujinayaa gaariga sida hadalka loo yiri uu saarnaa Saad hogaamiyaha sare ka tirsan al-Qassam oo daba socda gawaari kale oo kolonyo ah in gaari kaliis qarax uu ka dhacay kadibna waxyeello ay soo gaartay gawaaridii kale ku hareeraysanaa Hamas ilaa iyo hadda
mana beenin mana xaqiijin warkan laakiin waxay sheegeen in xadgudub weerarkaasi uu ku yahay heshiiska xabajoojinta gaar ahaan weerarka gaariga lagu beegsaday xamaas ma aysan oran gaariga ciddaasaa saarnayd iyo ciddaasaa wax ku noqotay laakiin warbaahinta carabtu waxay leeyihiin wararkan waa warar isoo taraya la xiriira ninkan waxaana la sheegaa inuu ahaa ninka labaad ee guutooyinka alqasaam ee marayka Gaza wuxuu ku soo kordhay warkaas waynu arki doonaa markan waxaynu eegaynaa dhankaas iyo war la xiriira markab ka yimid Shiinaha oo ku socday waddanka Iiraan ayaa waxaa la sheegayaa Maraykanku inay gacanta ku dhigeen haddaba xog cusub oo caawa soo baxday ayaa waxaa lagu sheegay in Maraykanku bishii November ee aynu ka soo gudubnay in uu weerar ku qaaday markab ka yimid Shiinaha kuna sii jeeday Iiraan xilli uu gooshayay badweynta Hindiya waxaana lala wareegay shixnad iyo qalab military oo saarnaa markabka warbixintan waxaa daawacay wargeyska Wall Street Journal ee Maraykanka ka soo baxa waxaa lagu sheegay in mas'uuliyiin Amerikaan ah oo magacooda aan la shaacin ay sheegeen in ciidamada Maraykanka markabka ay ku weerareen 100 mayl meel u jirta xeebaha dalka Sri Lanka ka hor intii uusan sii wadan safarkiisa wargeysku waxa uu sheegayaa in qalabka military ee Maraykanku la wareegeen uu ahaa mid Iiraan ay u adeegsan kartay sida hadalka loo yiri soo saarista hub caadiya isla markaasna qalabkaasi la burburiyay kadib markii la qabtay mas'uuliyiinta ayaa sheegay in Maraykanku muddo ay daba socdeen dhaqaaqa markabka ka hor weerarka iyagoo xusay in tani ay ahayd markii ugu horeysay sanado badan oo Maraykanku uu qabto markab ka imaanaya Shiinaha inkastoo aan la shaacin milkiilaha ama magaca markabkaasi iyo shirkadda iska lahayd taliska ciidamada Maraykanka Indo-Pacific ayaa ka cudur daartay ka hadalka faahfaahinta dhacdadan mar la xiriiray arrintan waxay la xiriirtaa iyadoo madaxweynaha Maraykanka Donald Trump arbacadii ku dhawaaqay in la qabtay markab shidaal sidii oo aad u weyn laguna qabtay xeebaha Venezuela halka afayeenka aqalka cad Caroline Leavitt ay sheegtay in markabkaasi la qabtay kadib markii la ogaaday inuu waday shidaal loogu talagalay sida halka loo yiri ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan oo cunaqabatay inay saaran tahay laakiin arrinta la yaab kale waxay noqotay Iiraan ayada dhoofinaysa shidaal maxay uga baahan tahay marka shidaal Venezuela dood baa ka dhalatay hadalka ka soo yeeray afayeenka aqalka cad gabadha lagu magacaabo Caroline marka waxay leeyahay warkeeda waa war iskhilaafsan waa yahay qodobkaas haddaynu intaa kaga gudubno iminka waxaan u gudbaynaa sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka oo aalab aynu ku soo qaadano sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aan idinkugu soo gudbino waxaan idin haynaa sheeko la yaab leh afkana gacanta lala saartay haweeney si qoraafaad ah oo turufateernimo ah dadka magaalo ay deganayd oo ku taal waddanka Australia dahabka uga furanaysay haddaba aynu eegna sheekadan warbaahinta waddankaasi ay wax ka qorayso haweeneyda halkan idinkaga muuqda sawirkeeda waxaa lagu magacaaba Mariana Mijalovic waxaa la sheegayaa haweeneydan inay iska dhigtay qof looga soo warramo samada si hadalka ay u dhigtay waxaana ay kaashanaysay gabadheeda oo 19 jir ah oo lagu magacaabo Ana labadooda waxay beegsan jireen haweenka taajiriinta ah magaalada Vienna iyo weliba magaalada Munich ee waddanka Jarmalka ayay inta badan tagi jireen kadibna hablaha dahabka qaaligaa sita iyo jewelryga ama waxyaalaha la isku qurxiya ama diamondka ha noqoto iyo sidoo kale qalinka qaaliga ayay u tagaysaa markaas waxay leedahay jijintan ama dhigtan ama faraantigan ama saacadan aad sidatid waa qaali laakiin ma la socota in habaar uu kugu soo socdo qofkii uu naxaya markaasaa la yiri oo maxaa dhacay waxay leedahay cudur halisa kugu dhici kara shil baad geli kartaa dahabkaaga wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyo kan qofka intuu naxo ayuu dahabka siibaya markaasuu farta ka saaraya waa qalin shubatadii la sheegi jiray ma ogtahay dacwad ogayaasha waddanka Australia ayaa waxay sheegeen in haweeneydan ay 19 qof muddo 10 sano ay qiyaamtay waxaana la sheegay in ay ka dhacday lacag isku geyn lagu qiyaasay 673,000 oo doolarka Maraykanka waxaa la sheegayaa in lacagtu intaasi ka badan tahayoo ayba gaari kartaba 11 milyan oo doolarka Maraykanka booliiska waddanka Australia ayaa weeraray guriga haweeneydan waxaana gacanta ay ku soo dhigeen xubno ka mid ah qoyskeeda laakiin iyada waxaa la sheegayaa inay weli baxsa tahay guriga waxaa laga helay dahab lacag cadaan ah iyo weliba xitaa gaadiid maxkamaddu waxay xukuntay in ay bixiyaan 2 milyan oo doolar
iyadiina iminka booliis ayaa baadi goobaya haweeneydan lagu tilmaamay turafatoradii qarniga waa haga inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii qubanaha waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo